MB share gareeya wayaabana hal mar leebo I don't know what's wrong. war soo dhawaada nimayow telefoon qaribana meesha ii yaale computer qaribana bacaawa ka soo gala ceeda xaqandan ha aaminina waa ku sii soconeynaa ha aaminina kuwa senatarada idiin ah kuwa xildhibaanada idiin ah ee muqdisho idinka jooga tuka cambaar la ka soo qaada horaan uga sii soconeynaa barnaamijkeena uma joojin doono kulay tabuu go-ay ha aaminina tuka cambaar la ka soo qaada ha aaminina waxba ha ku darsanina inay idinka dhinteen oo kaleeto idinka dhinteen oo kaleeto ka soo qaada xildhibaanada muqdisho idinka jooga inay idinka dhinteen ka soo qaada muqdisho maxaa leeyahay waxa kale idinka jooga senatarada idinka jooga waxba ha ku darsanina iyo idin soo dhaxgelin iyo waxba idin ku darsanin ma fahanteen iyo in idin soo dhaxgelin wax idin ku darsanin ha idinka saqiiraan ammaan ku dhalay wadankiina iyo iimaan maxay tahay muhiimadda caawa dadka aan uga digayo maxay tahay caawa muhiimadda wadanka aan dadka uga digayo maxay tahay horta ma lay maqlaa qaraawo waxaan rabaa caawa halkan inaan jawaab waafiya uga diro gabadha annaga baarlamaanka inagu matasha ee la yiraahdo ubax tahliil waa qof noocee ah haddaba ubax tahliil waa qof noocee ah ubax tahliil dad badan oo la maray way jiraan haba ugu darnaatee gabadha leeya ubax tahliil ma rabo inaa u gafo ma rabo inaa personalitygeeda ku xadgudbo laakiin waxa ay ku hadlayso iyo waxa meelaha ay la taagan tahay war baarlamaanka idinka soo jira dhankan iyo muqdisho waa ubax tahliil oo kale annaga midaasaana laga maray inta la mara annagana lagu soo maray annaga ubax tahliil inta la maray dad la mara soo ma jiraan anaga inta gabadhaasna laga maray oo ay waalatay annagana lagu soo qofkaas waxaasaa la igu soo fala ma maqli jirta qofkaas waa la igu soo falay hadda annaga waana lagu soo fala naagtaas ma fahanteen waa qof dhimatay nacamlayn intay wixiida dhaafeen oo idab daro dhaaftay ee waxay keentay inay tiraahdo aniga qof iga daba hadli kara maleh aniga qof iga daba yeeli kara maleh intay kibirtay oo kaadi naclowday bay waxay taagan tahay yaa qof aniga iga daba hadli kara raalahaada waxbaa meel ku waxaysanayaa waxay taagan tahay aada iyo aada umahadsanta cabdikaafi gooni walaalkay soo dhawow waxay taagan tahay qof iga daba hadli kara maleh waxay taagan tahay qof aniga bahalka waxay tiri aniga waxaan ka soo jeedaa waxaan ahay ubax tahliil haddaba waxay taagan tahay anigu waxaan ka soo jeedaa gobolka aan ka soo jeedo anaa u taliya now who the hell are you annaga xildhibaanaan leenahay madax baan leenahay ahlu sharaf baan leenahay ma noo talisid annaga naayaahe cajiinkaa gurigaaga ku qaso annaga qaladka aan samayno oo ugu weyn waa inaan adigu soo dooranay qaladka ugu weyn oo aan samaynay waa inaan adiga xildhibaanad kaa dhignay shame on you maaha inaad tiraahdo anaa matala cidda aniga aan ka dhashay igama daba hadli karaan anaa matala anaa ka dhaca dhiidha shame on you ma matashid cidaa matashid ma leh cid maxaa la yirahdaa kusoo dooranaysa ma leh waxaa xaarka u qasanaysid adeertaana aada iyo aad waa kuu taagan walaalkeen maxaan axmed soo dhawow sharafaa leedahay ina aabbo waxaad xaarka u qalanaysidna waa og tahay
neef gowracan geeda kama waabto sharafay waxaad u weelanayso hadba geeda iskugu jafaysid war maxay tahay connection fail إليه محي تغويل بربنا ساقطة connection fail بو بإليها واريا علي رسول يا خاندي ان ويل بربنا ساقطة وإي ساقط سومي لا أي هاي ان وحان ربي إنا إذا إراغضو ان أبحي عدا ما تشد مله ان صومالي وحي كما ماذا ان وبحي ان محل يرادا ان عيدا ما تشد مله عيد اد وتليسد مله عيد ان كادب هلي كرين او اد sheeganaysid baaba ila had cajiib ila aba waxa ila had cajiib ila cid aad sheeganayso oo leedahay maxal yiraahdo igama daba hadli karaan iyo igama daba sheekeyn karaan iyo igama daba warami karaan cid aad leedahay waxa had wax u qasaysidna waa lagu faansan yahay Allah ku barakeeyo Allah ku karaameeyo ilmahaaga shaqo waa siisatay shaqo waa geysatay waa danaysatay maxaa la yiraahdaa inta iska badanna dad uma baahnid waxa u baahan tahay male tol uma baahid kale taba saa u hadashay naag tol u baahan ma tihid naag tol u baahan ma tihid ubaxaysad u hadashay ubaxay intaad meel soo istaagtay baa culmo iyo caamo saqiir iyo kabiir intaad meel soo istaagtay tiri aniga wax iga daba hadli kara ma jiraan aniga qoys baan ka dhashay qoyskaygana igama daba hadli karaan aniga cid wax iga daba dhigi karta male inta laga daba hadlo aad dabadan haraati laga gelina inta laga daba hadlo aad dabadan haraati laga gelina uma dhaqmin si ehlu sharaf uma dhaqmin naag magaca duriyada sheegata uma dhaqmin naag sharfan sideedii uma dhaqmin naag beritol dan iyo heela kale tolna ma soo raadsatid maxaa la yiraahdaa dadka aamatash annaga kamida annaga kula hadlayna kamida dadka aamatasho maxaa nagu matashaa maxaa noo sheegtaa gabdhaha aa ka dhalatay iyo tolka aa ka dhalatay inta meel isku keentay weligaa ma ka hadashay weligaa ma la hadashay weligaa ma la shirtay hadda xaaf iyo dawladiisa aad qalalaasa ku waday oo lagaaga aamusay maanta hadalka ku hadashay lagaaga aamusi maayo shame on you maradiya kaaga dhacda hadalka aa ku hadashay na umada ilaahay waa ku jiraan nacamleeyaasha farmaajo waa buuxan waa aamusayiin oo danaheeda ay haystaan maxaa inta gabasaar cagaar soo qaadaysid ina inta meesha soo istaagto gulwadeen la soo istaagto kugu qasbanaayahay maxaa kugu qasbay maxaad ku keentay inaad inta meel soo istaagtay aad tiraahid aniga dadkaan matalo aniga dadkaan ka dhashay igama daba hadli dadaan nagu matala meesha naguma matashid nacala qabtaana tahay wasaqad baana tahay wax dhimatayaana tahay inaan ku caayo ma rabin inaan kugu xadgudba ma rabin laakiin waxaan kuu sheegayaa ubax taaliilay go-aanka maanta lax gowracan geeda kama waabato sii sheergaree qadaqootaqooto sii sheergaree barnaamijka lax gowracan geeda kama waabato ubax taaliilay lax gowracan baa tahay I can feel you honey I can feel you waa ku dareemi karaa lax gowracan geeda kama waabato waad og tahay meesha aad ku socoto iyo go-aanka ay kaa gaareen dadka aad ka dhalatay go-aanka ay kaa gaareen iyo meesha aad ku socotaad og tahay waxaad isla waalayso la gariirayso oo intaa meesha soo istaagto gabasaarka u dhiganayso oo sariirta waxa lagugu soo sheegaa meesha la soo istaagayso ha ku ekaato gariirkaaga iyo isgilgilkaaga sariirtaada korkeeda ha kuugu ekaato isgilgilka iyo sariirta waxa lagugu soo sheego ubax taali sariirtaada korkeeda ha kuugu ekaato ubaxay waa danaysatay go-aankaaga waa gaartay howlahaaga waa qabsatay walaalay sariirtaada korkeeda ha kuugu ekaato ina qorshe wuxuu dhagta kuugu sheego daaqada u sheeg daaqada wax kale u sheegta daawaysid daaqada u sheeg laakiin inta meel la soo istaagtid dadaan kuma talaariya yaa ay sheegi kara ariya yaa iga hadli kara ariya yaa ka dhici kara ma la soo istaagaysid mana kaa aqbalayno waan diidnay kaamana aqbalayno naga xishoo ha soo istaagin meel dambe oo ha ka hadlin ee naga xishoo
walaalay macaanay naga xisho allaan kugu dhaariye naga xisho ma rabna inaan ku cayno ma rabna inaan kugu xadgudubno ma rabna inaan kugu saqajaano naga xisho ma rabna inaan kugu xadgudubno caydaada ma rabno maxaa la yidhahdaa familkaaga inaan afaarihiisa galno gabadha abtiga u ah wax u reebku jamaal waa ku salaam wax loo reebaayo war waxay noo reebato male dharkeen nagala baxda dharkaa lagala baxee dharkeen nagala baxday war waxaan ku yidhi dharkeen nagala baxday intay meel soo istaagtay eedda macaan barnaamij toosoo ubax taaliila uga hadlaayaan ku jiraa ma ku soo qabtaa ma ka hadlaysaa sameecadda aan fure may kan naftirkiisa lagaa maqlaa shacabka maxaa leedahay eedda ubax maxaa leedahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan horta ma maqashaan wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakatu ma maqashaan faa'iso war ma maqashaan faa'iso ma maqashaan walaalayaal ma maqashaan faa'iso codkeeda ها إيسو قرا بليز ها إيسو قرا كسعو السلام عليكم أن قالي دواك سلامي وكان قالي دواك سلامي هرتا وحتى لي وحوي يعني حلبانة وياه الشرع اللي وصل دورتي استيدهانا لقى صدورتي لكن وحي قلد وقلد وحي صحنا وصح صح مركو والي هنا دتكي ساقبته صح لمبركو هرتا وحي قيل سينا عاو ماش أصو فريسته aad iyo aad lambar ka horta waxa weeyaan ubax tahliil in ay beel dhan tiraahdo aniga matala waxay ugu tahay ceeb ayadeena ceeb ku tahay annagu haddii wax na matalaya nin baa na matalaya nabadoonnaan leenahay nabadoonno hoosaan leenahay nabadoon guud baan leenahay ragna matalo oo magac ahaan noo matala ayaa meesha ka buuxa lambar labo waxay tiri ubax tahliil dowladdan fiican ha naga jajabinina ubaxay wadankana waad joogtaa qof indhaxirana ma tihid waxna waa la socotaa intaan soomaalida kaleba la gaarin ba anagu isteed ahaan galmudug ahaan waxay dowladdan federaalka noo qabatay baan kuu sheegayaa intaan meel ku qoratid oo bug soo qaadatid inay wax fiican noo qabatay iyo inay wuxuu noo qabatay adigu markaas noo sheeg صح lambar kow horta sanataradeenna waxay ku weerareen guriga oo dowladda federaalka noogu jira صح lambar labo xildhibaanadeennay maxay ahayd tahay hoteelka maxaa la yidhahdaa hotel ugu soo dhaceen oo ku laayeen صح lambar saddex nimankeenii waxgalka ahaa ee siyaasadda kasoo shaqeeyay sida inaa cabdishakuur oo kale iyo ciidankiisii inta la dilay baa la duugay lambar afar sooba dadkii ku dhintay 100% waxay ahayd dadka soo jeeda reer galmudug state صح midda ugu sii daro waxay tahay inta lacag la bixiyay ayaa statekeennii dhisnaa ee aan dhaqaalaheena ku dhisanay oo maxay ahayd tahay ummadda Soomaaliyeed oo stateyadaas stateka nala degta aan dhir war wax lagu darsado waxna keensan intaan gobonimo sameynay oo dhaqaalaheena iyo dhigeena ku murxinay ayay lacag inta diraan bay maxaa la yidhahdaa isku diraan dowlad goboleedkeena dib iskugu diraan ninkii aad ogeyd ubax tahliilayo dhibka aan ka soo marnay aragga xumaaya rafaadsanaya ina carabay waa aad ogeyd maanta galmudug state imaanahayay suunka xataa lagu xirto uma xirnayne baati habar ka soo gooday baa suun u ahaa ayaan intaan gobonimo intaan ka qabnayna wax nagu darsada xumaana la xumaynayo ayaa la yiri waa kaasaa ninkaas madaxweyne ku xigeen ooga dhiga haddaad gobolkii waa idinla degnaay kaan ogaayo dhibka ornaa ka soo marnay oo dhaqaalena lakugu darinin ayaan maxay ahayd tahay dib asagii loo soo diray ina gacal casir oo la haysto dhulkiisii la haysto oo maamulkiisii yacni meeshuu deegaan ahaan ka soo jeeday isagana la haysto oo hal askari ugu daran baa inta dhaqaale lasoo siiyay asagana dib la igugu soo diray صح اوكي maxaa kaloo la keenay dad kale oo dhaqaaqeen oo soconeen oo iimaanka alla ka qaaday oo meel kasta wax iimaanka alla ka qaaday way joogaan inta lacag la siiya deegaankeena la rabay in lagu baabi'iyo dowladda federaalka hadaba anaga intaasay noo sameysay shaqo fiican bay noo qabayso dadkeena inay layso xabashiina anaga noo adeegsato gunguni dhashay iyo inta cuqdad qabto dhan oo xumaanteena qabta inay maxay tahay noo adeegsatay in maxay tahay nagu laayaan marka dawladdu
adigase waxaan la yaabanahay kelmadaasi hadday kasoo yeeri lahayd wasiirada alalaaska ubax tahliiley lama yaaben laakiin adiga baahiyo kuma hayso tahliil warsamo taajiraha wasiirada alalaaska haddaan noogu soo celiso oo noo tafatirtid waa tuma wasiirada alalaaska wasiirada alalaasku waa Khadiija Diiriye waa naag rafaad soo martay oo jaariyad soo ahayd oo joohar oo dhan ka shaqayn jirtay erayadaas hadday tiraahdo Khadiija Baraanburtay waa u qabilahay waana dareemi lahayo waa naag jaariyadnimo inta soo bilowday cidiyii soo murxeen kursi ay lahayn lagu fariisiyay waxaas kale hadday tiraahdo anigu wasiirada alalaaska lama yaabin laakiin ubax tahliiley nimankan madaxda hadda aad u haysato aad adigu madaxda u haysato dhaqaale ahaanna adaa ka dhaqaale badan magacna adaa ka fiican oo adeerkay tahliil warsamo allah u naxariisto taajir oo multi milyaneer ah ku dhalay weligaa meel baahan ma aada arkinin weligaa dhibaato ma aada arkin hankaagu marka sees kuu siiyo dowlad hal xaafad ku xiran oo raas casayr turas kambooni laga soo nacay oo ummadii ilaahay oo dhan maxaarta soo nacday inaad annaga inta xildhibaanad kaa dhiganay aad afkeeni naga matashid oo aad been naga sheegtid oo aad tirahdid dee galmudug isteed oo dhan iyo waxa la joogaa waa idin taageersan yihiin igamana dawali karaan haddaba anaa reer galmudug isteed gabar u dhalatay ah deegaankayga jecel dadkayga jecel madaxdayda jecel dowladda federaalka ee annaga kama shaqaysa bataatanba waxa galmudug la yiraahdo oo ay ka shaqaysaa kuma jirto anaa ku sheegay mucaarad baan nahay reasonka aan ku nahayna mucaaradna ma aha anaguna dowladda diidanahay ma aha inaan nahay dad dowladda necab laakiin dowlad adiga kuu socoto kuu xaydxaydan oo nacaybkaaga iyo xumaantaada iyo baaba'aaga maxay la yiraahdo u jeeda jiritaankeena anaguna uma jeedno mana jirayso mana jirisii doonta haddii ilaahay idmo marka adigoo teeda labaad saad ku keentay adigoo gabar habar gidira oo guberna Sacad Siciid ah oo aad taqaanid gubernada dhaqankeeda aad taqaanid oo soo jireen annaga madaxii noo talin jirto odayaal noo talin jireen oo nabadoon guud lahayn ina inta meel soo istaagta aad tiraahdo reer dhanbaan matalaagana daba hadli karo haddaba waxaan aaminsanahay dowladdan sideeda banaan madaxweynahaaba dhumo dariiqa haddii loo diro isagaaba dhumaba wixii naan kaloo taageersana sidiisoo kala dhumaysaa laakiin qabiil ma matali kartid odayaal baan leenahay nabadoonaan leenahay yees hal mid baan kugu raacsan oo gabar baa tahay banaan degtay oo lala hadli karo reasonka loola hadli karo waxay tahay waar nimankeena wayna xushmeeyaan odayaasheena wayna xushmeeyaan wiilasheena wayna xushmeeyaan laakiin macnaheedu ma handaysan inta iska noqotid oo meel istaagtid waxaan awoogaana ku hadli jirin dadaana ku hadli jirin adeerkaana ku hadli jirin inaad shir la timaado marka ubaxay waad qaldan tahay dowladdaana annaga naga gadi maysid midna anigu waxaan kaga sii digayaa reer galmudug waxaan leeyahay reer galmudug oo isteedyada kale anigu kama soo jeedo waxba igama gelinin nabadoodaan raba inay bulaalaan baan rabaa isteedyada kale inaan saa anigu u noolaadaan baan rabaa nabad baan la rajeynaya laakiin maanta kadib waxaad ka fiirsataan gabar la qabo annagoo dhow naagtii la qabo oo reer kale la qabo bataatan boorta inaan wax lagu darinba because laguma xisaabtami karo hadda habar kaloo iyadana qalweyn baa meesha soo fariisatoo leh nimanka mucaaradkaaba waxay ii sheegeen yaa maxay ahayd tahay haddii 10,000 aa naga dhimanayse 10,000 aa naga dhimanayse 1,000 wiil aa naga dhimanayse tir 1,000 wiil aa naga dhimanayse baadaaba qeyri farmaajo diriri waayeen aan bahalkii maxay ahayd tahay magaciisana ma rabi inaan sheego war habartu markay yaraanta beelley ku ahaan jirta weynay kala beelley bay ku noqotaa kelmadahaasi kelma aan sax ahayn oo been ah ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa u jeeda oo dareemi karta marka islaamahan la qabo oo xaafadaha kala ka sheekeynaya sariirta waxa loogu soo sheegay la imaanaya baarlamaanka dhexdiisa iyo golaha meelaha la soo istaagaya wararkan inay meelaha la soo istaagaan bataatanba waa qalad weeye marka waxaad iska ilaalisaan guurkan anagu in la iswada guursado waxaan wax ka qaban karnaa ma aha nin guurku waa calaf ilaahay ha isku bulaala labadii is aroosta laakiin gabar xaafad kale u raran bataatanba inaan horta xildhibaanba laga dhigin inaad maaragtay reer galmudug isla garataan anigu intaasaan qabaa waxaa igu maqaalaa eedo waxaa igu maqaalaa in maamulka galmudug iyo maamulka hirshabeelle iyo maamulka koonfur galbeed in lagu qanciyay in sidoo kale la soo dudumin doono ama burbur lagu sameyn doono maamulada kaleeto sida Puntland iyo Somaliland iyo Jubbaland maxaa ka leedahay arrintaas
oo farmaajo iyo khayr ay dhihi doonaan markii ugu horeysay oo 27 sano 27 sano kadib waa markii ugu horeysay maamul goboleed aan meesha ka saarno inay meesha la soo istaagi rabaan horta waxa weeyaan mid ku bishaaraysta ummaddu markay isla jirto صح oo dad mowqif la ay yihiin oo ilaahu rabbi oo ma laba qof noqoto cid bini aadan oo u tagi kartay cid baabi'in kartaa ma jirto صح reer Puntland hadday noqdaan sidii hore ay ahaan jireen dad isku duuban cid ag imaan kartay cid qori ka jaban kartaa iska yar صح Axmed Madoobe hadday iyo Jubbaland hadday noqdaan dad isku tiirsan oo madaxdooda